Assalaamu calaykum. Soo dhowow saaxiib. Muuqaalkeena maanta wuxuu daba socdaa sawir dhowr maalin ka hor aan soo gelinay boggeena Facebook ah. Sawirkaas oo ahaa dhakhtar ku labisan dharkii dhakhtarnimada, lab coat-kii caddaanka ahaa iyo dharkii scrub-ka loo yaqaan hoos ka wato, isla markaasna ka soo baxayo meel cafeteria ah. Wuxuu marka gacanta ku haystaa sandwich iyo koobkiisa qaxwada ah. sawirkaas markii aan soo gelinay runtii waxay noqotay interaction fiican laga bixiyay. waxaa ka soo hadleen dhaqaatiir asxaabnahay bulshada qaybaheeda kala duwan qaar badan oo ka mid ah. marka sawirkii falcelin badanaa ka timid, waxaana loo kala baxay dad dhahayo dhakhtarkan wuu qaldan yahay, sharciga dhakhtarnimadu wuu qalday, maxaa la dhihi jiray dharka oo caafimaadka ma la ogolay in kubashiinka lagu aado iyo waxyaabo la mid ah. dadka qaarna waxay dhahayeen dhakhtarkan waa bini aadan ma qaldana iyo wax la mid ah. marka adiga hadda muuqaalka daawanayo waxaan ku siinayaa 10 second fiiri sawirka, maxay kula tahay dhakhtarkan ma saxan yahay mise wuu qaldan yahay? okay, maskaxdaada waxaa ku soo dhacaya fikrado kala duwan, ama waxaa is leedahay wuu saxan yahay ama waxaa is leedahay wuu qaldan yahay. marka ugu horeyso fikradaada adigoo mahadsan nagula wadaag qaybta commentiga ee videoga. u gudubna marka aniga falcelinteyda ku aadan sawirkaas. dhowr sano ee u dambeysay waxaan kasoo shaqeeyey takhasuska loo yaqaano suuxdinta iyo daaweynta bukaanada ku jiro qaybta xaaladda adag ee loo yaqaano ICU-ga. waxaana kaga howlgeli jiray isbitaalka X Digfer muqdisho Somali Turkish Research and Training Hospital oo ku yaala magaalada muqdisho dalka Soomaaliya. runtii shaqadaas markii aan ka shaqeynayay waxay ahayd ama waxay ka mid ahayd shiftiyadii ugu adkaa noloshayda intaan soo galay ka mid ahayd. maxaa yeelay shiftiga shaqada wuxuu ahaa 36 saacadood. xilligaas aan shaqeynaynayna dhaqaatiirta takhasus ku qaadanaya ama tababar ku qaadanaya qaybtaas oo suuxdinta iyo daaweynta ICU-ga bukaanada ku jiro ma tiro badnayn oo way yaraayeen. waxaan kusoo xasuusanayaa sawirkan iyo falcelinta laga keenay. maxaa yeelay xilligaas aan meeshaas ka shaqeynaynay waxaa xasuusteyda kusoo dhacayso xilli 36 saacadood shifti aan ku jiro. maalan tusaale waxaan soo galay saakay subaxii 1 saac bar ama 1 saac ka hor. 1 saac bar aan soo galnay maalintaas oo dhan waa shaqeynaysay ama waxaa ka shaqeynaysay saalada ama ICU ka shaqeynaysay. okay, habeenkii la gaaray. habeenkii waxaa laga yaabaa shiftiga kaliya inaad ku jirtid oo mas'uuliyadaada inay tahay hal ICU iyo saalo oo kale. saalada waxaa imaanayaan oo la keenaya hooyooyin ilmaha lagu qalayo oo loo sameynayo cesarean section. waxaa la keenayaa ileen dal Kenya joognaa, amnigii ma sahlano oo ma wanaagsano. qof xabad kusoo dhacda la keenaa, xilliyada qaar qaraxa dhacayo, mararka qaar qof mindi lagu soo geliya la keenaa, mararka qaar xaalado qaliin caadi ah u baahan la keenaa oo qaliinka guud oo kale. marka waxaa dhacayso in lagaaga baahan yahay ICU-gii, saaladina lagaaga baahan yahay. gabagabada sheekada waxay noqon doontaa habeenkaas oo dhan inaadan indho is saarinba. kasoo bilow saakaa shaqeynaysay, caawana waa shaqeynaysaa, birrina way ku hortaallaa oo fasax ma lihid oo waxaa lagaaga baahan yahay 36 saac inaad dhamaystirtid. okay, habeenkii markii uu ku dhamaado waxaa xasuustaa oo runtii aanan markhaati ka ahay inay mararka qaar dhici jirtay inaad fursad u weysid ama aad heli weysidba quraac yar oo afka aad ku dhufatid. maxaa yeelay adigana energy u baahan tahay. waxaa dhacaysa marka dharka shaqada anagoo wadano inaan soo baxno oo cafeteria banaanka isbitaalka gudihiisa, dhismaha isbitaalka ku dhex yaala, laakiin meesha ku shaqeynayna banaankeeda waay. bukaanadii iyo eheladooda hortooda inaan soo marno, halkaas marka kubashiin aan kasoo qaadano iyo ismaris iyo wixii markaas la heli karo oo maxaa la dhihi jiray qamshax waxay Soomaalida yiraahdaan. inaan markaas kasoo qaadano af ku dhufatid koobkaas oo kubashiinkana aad ku tuurtid, shaqadii aad ku laabatid. waxaa kaloo mudan inaad ogsoonaatid bukaanada iyo eheladooda guryahooda ay ka imaadeen oo saakay isbitaalka number ay usoo doonteen. sida badan guryahooda ay kasoo quraacanayaan iyagoo energy fiican leh ayay imaanayaan. maxaa yeelay isbitaal markii la yimaado baaritaana mare, kombiyuuteraad kala duwan, waqti hore ma ka bixi doontid. saa daraadeed bukaanada badankood way kusoo tashtaan. laakiin dhakhtarkii xalay shiftiga ku jiray meel uu wax ka keeni karo ma lahan aanan ahayn maqaayadas banaanka inuu soo aado, ileen waa bini aadan. marka sawirkan wuxuu soo xasuusinayaa dareemahaas iyo wixii aan dareemayay. dhaqaatiir badanna ay ku shaqeynayeen fieldiga caafimaadka iyo takhasusidiisa kala duwan. waxay u kala baxaan takhasusaad ay aad u adag tahay shaqadooda oo shiftiyadooda aad u adag yahay oo aad ay u badan tahay shaqada ay qabtaan, iyo takhasusaad raaxa iska ah. markaas oo aad banaanka soo aadaysid oo maqaayadaas aad wax ka soo doonanaysid, sababtu waxay tahay maqaayad kale oo isbitaalka maqaayad uu leeyahay oo dhaqaatiirtu ugu talagalay inay ka cunteeyaan, laakiin maqaayadaas waxaa laga yaabaa
in waqti cayiman yani cuntada lagu kala qaato adiga marka dhakhtarka tahay bukaanka xalay oo shiftiga ku jirto inaa wareejisida laga rabaa oo dhakhtarka soo galay ku wareejisid ama bukaana xaaladiisa adag tahay oo ku mashquulsan tahay marka maqaayadii cuntada waqtigeeda gaarka loogu talagalay way ku dhaaftay waxa ku qasban tahay marka meel kale ma ku furno aanan ahayn inaad bukaankii hormartid iyo eheladiisa oo banaanka wax ka soo iibsatid marka ma dhihi karnaa adigoo xaaladaas ku jirtid ma dhihi karnaa dhakhtarka wuu qaldan yahay mar haddii asagoo labiska dhakhtarnimada wato uu banaanka soo aaday ma dhihi karnaa waa su'aal soo maahan okay waxa baraarujinaynaa marka marar badan dhakhtarka waa la dhaleeceynaya waxba laga sheegayaa ogsoonow dhakhtarka waa bini aadan ee ma ahan robot ama computer sida caadiga dadka kale oo kale ay ugu baahan yihiin inay waqti nasasho qaataan cunteeyaan waqtiyo inay la qaataan qoysaskooda xilliyada qaar inay dalxiis u baxaan sidaas si limid ah sida dadka dhan oo kale ayuu u baahan yahay qofka dhakhtarka ah asagana inuu waqti la qaato noloshiisa iyo reerihiisa runtii waxaa xusid mudan bulshada Soomaaliyeed sida qiimeynta iyo qadarinta weyn ee u siiso dhaqaatiirta iyo howlwadeynka caafimaadka maxaa yeelay wadamada caalamka wadamo badan oo kamid ah dhaqaatiirta waa lagu bahdilaa waa lagu dhibaateeyaa cunsuriyado kala duwan iyo dhibaateyn ayu nooc ah ayaa loo geystaa balse taas bedelkeeda ummadda Soomaaliyeed dhakhtarka waxay u ixtiraamtaa si aanan caadi ahayn markii la joogo magaalooyinka iyo markii la joogo baadiyaha intaba dhakhtarka dadka Soomaaliyeed waxay u tixgeliyaan si ka heer sareyso mararka qaar dadka siyaasiyiinta ah iyo xubnaha kala duwan iyo taytalada kala duwan ee bulshada taas waxay mudan tahay ummadda Soomaaliyeed in lagu amaano wayna ku mahadsan yihiin sanadahan u dambeeyay dhaqaatiirtu waxay u taagan yihiin sida booliska wadanka ugu taagan yahay oo kale sida ogsoontihiin xanuunada kala duwan ee soo maray caalamka dhaqaatiirtu waxay u taagan yihiin sida booliska uu difaaco iyo ciidanka ay u difaacaan wadamadooda oo kale ayuu dhakhtarkana u difaaca bulshada iyo ummadda ku dhaqan deegaankaas asagoo markii loo baahdana wacyigelin sameynayo si xanuun uusan ugu imaanin bulshadii markii xanuunku u yimaadana asagoo garab istaag iyo daaweyn u sameynayo taas marka waxaa la dhihi karaa dhaqaatiirta waxay galeen markii hore iyagoo ahaa daaweeyayaal iyo ka hortagayaal ayay haddana waxay noqdeen difaacayaal qaran sanadihii ugu dambeeyay marka annagoonan dheereynin muuqaalkan waxaan jeclaystay inaan kusoo gabagabeeyno dhakhtarka waa bini aadan sawirkan aniga fikrad ahaanteedana ma qaldano maxaa yeelay dhakhtarkan waxay u badan tahay in uu shifti ku jiray in uu maaragtay shaqo aad u dheer oo daal fara badan leh inuu ka soo baxay uu u baahan yahay inuu wax yar nafsadiisa refreshment ku sameeyo oo maaragtay energy qaato saadaradeed waxa isxasuusinaynaa qaacidada ingiriiska ee maxay ahayd don't judge a book by its cover buuga ha ku judge gareynin coverkiisa ciwaanka uu ku qoran ama coverkiisa sawirka ku sawiran macnaha marka ugu horeysa buuga adigoon aqrinin hadhiin buuga uu xun yahay ama uu fiican yahay dhakhtarkan sababta ku khaliftay marka adigoon ogeyn inuu banaankaas kafeega ka cabo ama energy-gu uu ka soo doonto adigoon ogeyn sababta ka dambeyso ha ku judge gareynin inuu xun yahay ama uu wanaagsan yahay ama uu qaldan yahay ama uu saxan yahay wax la mid ah simply waa bini aadan oo ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan haddii aad ka heshay muuqaalka like saar si aan u ogaano dadka ka falceliyay ama ka helay muuqaalkan inta ay la eg yihiin waxaan ku kulmi doonaa insha Allah muuqaalkan muuqaalka xigo wassalaamu calaykum